بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo idin kaga imaanaya magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya waxaanu halkaas kula kulanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow kasoo inuu yahay wasiir ku-xigeen ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waa dhaqaalayahan Soomaaliyeed oo wax badan ka og xaaladda dhaqaalaha ee Soomaaliya barnaamijkan waxaanu si gaar ah ugu eegi doonaa marxaladaha ku xeeran lacagta si baaba'aysa ee Soomaaliya dadaalka la doonayo in lagu daabaco lacag cusub oo Soomaaliya ay yeelato sida loo hirgelin karo iyo farsamooyinka la xiriira qiimo dhaca lacagta shilinka Soomaaliga ah oo iyana cabasho badan ay ka jirto marka hore ku soo dhawow telefishinka qaranka mudane wasiir Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow waa mahadsantahay Cali Cadaala su'aasha ugu horeysa rabeen aan ku weydiiyo waxay taban faahfaahin naga sii marxaladda ay ku sugan tahay lacagta shilinka Soomaaliga ah ee wadanka Soomaaliya waa mahadsantahay Cadaala bismillaahir rahmaanir rahiim horta lacagta Soomaaliya shalay iyo maanta ma aha marka la bilaabay in la daabaco ay lacag Soomaali noqoto waxaa jirtay 60kii ka hore xirnimada ka hore waxaa dhici jirtay in la yiraahdo shilin Soomaali shilin kaliya la yiraahdo ma rala shilin ayaa la dhihi jiray waxay lahayd waxaa soo saari jiray bankiga dhexe waxaana laga daabacaa shirkad gaar ah ayaa lacagaha daabacdo oo si aanan falsification loo sameyn marka shilinku muddo hore soo dhaqankiisu bilowday wali gaar ahaan waqtigii mustacmaradii Talyaaniga koonfurta waxaa laga isticmaali jiray lacagtaas shilinka la yiraahdo waqooyigana waxay isticmaali jireen lacagta Ingiriiska waxay sal lahayd waqooyiga lacagaha India lagu daabaco oo dawladda India waa ogtahay Ingiriisku wuxuu soo isticmaalsaday dalkaas India 60kii wixii ka dambeeyay waxaa la wareegay dawladda Soomaaliyeed inay daabacdo waxaana qaatay magaca shilin Soomaali waagi hore shilin kaliya la yiraahdo shilin Soomaali oo noqday ilaa muddadaas uu soo socday mar walbana waxaa daabacay waa bankiga dhexe ahayd marka shilinka Soomaaliga laba qaybood waa mid ah warqad sida ku aragtaa warqad weey midna waa lacagta maanta naga maqan oo ah shilinka birta ah shilinka iyo 5 senti iyo 10 senti iyo oo suuqa ka baxay marka shilin Soomaaliga saasuu u yahay rasmi waa lacag dawladdu ay soo saarto wadankan looga isticmaalo lacagii rasmiga ah ee sharciga ah ee Soomaaliya ay lahayd maxaa ka noolaa oo lacagtaas sharciga Soomaaliya waxaa maanta ka nool suuq yaal kaliya kunka shilin oo loo yaqaan baalweyn kaliya ka soo haray lacagaha kale 500 tobanka 20ka 50ka ahayd 100ka ahayd waa sharci laakiin suuqa waxay uga baxeen sicirka inflationka waxa la yiraahdo wax qiimo ay hadda ay leeyihiin wax lagu goosan karo male taasa keentay in suuqa ka baxaan ayna ku harto suuqa shilinka la yiraahdo baalweynta ee kunka shilin kaliya dhawaanaha waxaa la hadlayaa professor in lacag shilin Soomaali ah oo cusub la soo daabici doono wadanka Soomaaliya bal faahfaahin naga sii lacagtaas la soo daabici doono iyo meesha hawsheeda ay marayso waa jirtaa in ay dawladda Soomaaliyeed ay isku dayday inay lacag daabacdo waa 2008 ay isku dayday waxaana daabaci lahayd shirkad ama hay'ad ay leedahay dawladda Suudaan lacagtaas waa la daabacay Suudaana lagu daabacay daabacaad oo ma ahayn fara badan lama sameeyay waxay ahayd in qaabkii loo bedeli lahaa lacagta Soomaaliga ee socota hadda sidii loo bedeli lahaa iyo qaababkii lagu bedeli lahaa waxay ahayd lacag ilaa iyo mararka qaarkood gaaraysay qiimaheeda hal warqad kaliya ilaa iyo 50,000 oo shilin arintaas waa ma dhici karin runtii isku day waa jiray laakiin bankiga dhexe iyo rag aqoon-yahano dawladda ku jira ayaa si fiican u fasiray
waxaana aad iyo aad lacagtaas in la joojiyo ayay noqotay oo aan sababta raggii aqoon-yahanka ahaa oo diidanaa baan ka mid ahaa waayo lacagta marka la daabacayo shuruuday leedahay layskama daabici karo lacag annagu waxaan ku xirannahay hay-ad la yidhaahdo IMF oo qaabilsan lacagaha adduunka international monetary fund aa la yidhahdo iyada ayaa qiimo u yeesha shilinka ama lacagta la daabacayo ogolaashana laga helaa waxay samaysaa qiimeynta shilinku qiimuu leeyahay ma aha in la iska daabici karo maxaa qiimo ah xaashida yartaa macno ma laha laakiin qiimaha ay yeelanayso ayaa macno ku fadhiya qiimahaas wuxuu ku fadhiyaa awoodda dhaqaalaha dalka la iskama daabici karo marka ayadoon daraasad la samayn qiimahana la saldhigin teeda kale waxaa meesha ku jirta marka la daabacahayo lacagtu waa damaanad ayay u baahan tahay ma aha in qof kasta lacagtu iska samayn karo damaanad bay u baahan tahay damaanadana waxa weye waxaa bixin kara lacag dollar ah oo u dhiganta oo ilaalisa lacagta la daabacayo dollar baa ilaalinaya haddii kale qiimo yeelan mayso waxaana sheegi kara daraasad in la sameeyo lacagtaasna ay tahay lacag kaash ah oo gacanta lagu hayo uu bankiga dhexe gacan ku hayo ma aha marka lacag la iska waxa lacagtu مثلا waxaan u malaynayaa waqtiyadan dambe waxaa laga hadlaya 100 milyan oo dollar in bankiga dhexe oo kaasha gacanta u qaayo oo any time oo la weydiiyo lacagtaas sidii jirta awooddaas lama hayo marka iska daabac kaliya ma iman karaysaa maxay hadda u dambeysay marka arrintaas lacagta saasoo waa la daabacay maxay sugaysaa hadda maxaa maraysaa waxa weeye daraasad baa hadda sidaan anigu ogaa in la sameeyo ahayd iyo in la helo damaanadii lacag waa la daabici karaa qaybo laga daabici karay leedahay waxaana waxa weeye lacagaha yaryarka ah ilaa iyo 10 shilin 100 shilin 50 shilin wax intaa dhaafsiisan haddii la daabaco waxay la imaanaysaa inflation sicir baray la imaanaysaa waa in lacag damaanada xoog badan loo hayo weeye marka ilaa damaanadaas laga helayo IMF-na ay bixiso ogolaasho Soomaaliya waxay lahayd lacag sida aad sheegtay qaybo kamid ah sharci dabcan sharci ay ahayd oo qaybo kamid ah wali ay shaqeeyaan intii lacag cusub la soo daabici lahaa maxaa diidaya in lacagtaas aan haysanay ee Soomaaliya ay lahayd dib loo soo cusboonaysiiyo oo dib iyada suuqyada loo soo geliyo waa la samayn karaa laakiin ayaa meesha ku jirta waa hadda kuu sheegaya damaanad baa loo baahay shilinka qiimuu leeyahay qiimahaas waxaa ilaalinayo depositka ama damaanada uu bankiga dhexe hayo anytime waa samaysan karta haddii taa la helo lacagtaasoonan loo helin oo IMF-na aan lagala xiriirin isma xukuntid adiga damaanada dowladda laga rabaa inay lacag hesho inay lacag u hayso weeye yay tahay cidda iskale in ay daabacdo lacag marka ay timaado sida qawaaniinta caalamiga ah ee samaynta lacaguhu ay u shaqayso lacagta waxaa daabici karo keliya awoodna u leh bankiga dhexe cid kale oo shaqo ku leh bankiga dhexe ayaa kaydiya marka la daabaca isagaa haya marka ay sida hadda xaaladda hadda aan ku sugannahay ay duugowdo lacag isagaa dadka ka xereeya soona daabaca mar labaad waxaa lagu khaldamaa ay dadku arkaan wasaaradda maaliyad inay arkaan wasaaradda maaliyaddu waa dowladda dhexe waxay leedahay keliya awoodda in ay ilaaliso bankiga dhexe waa hoos yimaada laakiin awood kale ay ku leedahay male aan ka ahayn in lacagta ay soo qaado ay dhigto bankiga dhexe ayna meeshaas ku maamulato laakiin bankiga dhexe ayaa awoodda samaynayo tusaale waxaan kaaga soo qaaday
lacagta markaad aragtaad fiiriso xaashida ah waxaa ku qoran magaca bankiga dhexe jamhuuriyad iyo dowlad midna kuma qoran marka taasaa ku tusaysa xataa qofka aanan u fahamsanayn u fahamsan in wasaarad ay wax shaqo ku leedahay taasaa u tusay jaabkaada ka soo saar waad arkaysaa wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay qayb ka mid ah in ay daabacdo maxay tahay ay samayso waxa weeye waa qaybta sarifka ah shilinka halka shilin labada shilin shanta shilin wax lamida oo birta ah oo fududaynayo isdhaafsiga laakiin awood kale kuma laha daabacadda lacag lacago badan oo been abuur ah ayaa yimaada suuqyada Soomaaliya oo la soo daabaco bal lacagahaas iyo saameynta ay ku leeyihiin dhaqaalaha wadanka Soomaaliya iyo khatarta ay gelin karaan lacagta yar iyo ama dhaqaalaha yar dadka Soomaalida ay haystaan bal faahfaahin naga sii wallahi wax la yaab leh waxa weeye xaaraan 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 waa ku celinaya cid daabici kartaa shilinka Soomaaliya oo aan ka ahayn bankiga dhexe waa غير sharci wey ama ha ahaado qof ama hay-ad ama gobol taasaan si cadaan oo kugu sheegaya lama daabici karo qofkii daabacaa waa qof ku talagalay wadankan inuu kharibo ogaansho la-aanta bankiga dhexe lacagta ogaansho la-aan biyaan ahayn awooddaas waxaa leh bankiga dhexe ciddii daabacdaa waxay ku talagashay wadankan inay haadaan ka tuurto dabcan dadweyne badan ayaa xoolahooda looga iibsadaa lacagahaas been abuurka ah oo la soo daabaco haddii ay ahaan lahayd xoolihii iyo dhaqaalihii kaleete ay haysteen dadkaas iyo dadka lacagaha been abuurka soo daabacda iyo dhibaatada ay dadka kaleete lacagaha ay uga qaadanayaan lacagahaas been abuurka xoolihii ay haysteen iyadana maxay kula tahay aad runtii waxaan ugu mahadinayaa bankiga dhexe oo arrintaas si fiican usoo farageliyey waxaan arkaya TV-ga iyo idaacadaha si joogto ah inuu uga sheegay lacagaha been abuurka ah waxa waaye maxaa yeelay isagaa la awoodi lacagta marka lacag isaguusan daabicin waa xaaraan runtiina waa ku hambalyaynaya bankiga dhexe inuu ku celceliyey in lacagta been abuurka ah laga feejignaado lacagtaas haddaad aragtid lacagaha noocaas ah dadka sameeya markaad u fiirsato waqtiyada ay sameeyaan ayaad garanaysaa in ay yihiin dad aan wadaniyad lahayn tusaale waxaan kaaga soo qaadaya lacagtaas waxaa la daabacay oo la doonayay in lagu dhaco xoolaha nool ee Soomaaliya waqtiga xajka mawsim alxaj ribaadiyaha lacagta in la siiyo oo waxba ka jirin dhaqaalihii runta ahaa geeli arigii loodi in looga qaato marka dadku inay ka feejignaadaan loo baahan yahay lacagtaas waa xaaraan bankiga dhexe sida uu sheego in la raaco ayaan ku talinayaa lacagaha loo yaqaano electronic money ama lacagaha cusub ee la isugu tuuro habka hawada ah ee aan lacagta adag gacanta la isku siinin iyo Soomaaliya oo hadda ay ka hirgaleen dhaqaalaheeda iyo sida uu shaqeeyaan aragtidaadu maxay tahay waqtiga hadda la joogo lacagtaas waa lacag waxaan iraahdo mindi laba afle wey dhinaca markaad ka fiirisid waxa weeye lacagaha magacyadooda ma aqaano waqooyi koonfur meel kasta waa laga isticmaalaa waa dollar cash ah marka hore qofka inuu bixiyo laakiin se waxa wareeganayo waa hawo keliya dollarkii runta ahaa waa xarooday cid kale u xarooday waxaa iyadu leedahay tashiilaad inay samayso lacagtaasu inay hawadaasu meel kasta dadku inay iskaga diraan sheekadii ahayd iisoo tuur ilaa cadseeyihii ka shaaha cabaa makhaayadda shaaha aad ka cabtid baski yaroo aad raacid meel kasta arki maysa lacag xataa dadka tuugsada waxaa la ii sheegaya bahal maxaa la yidhahdaa warqado meeshan inay ku xirtaanoo wuxuu wataa mobile yar marka iisoo tuur waana tuugsanaya waa u tuuraysaa taas waxay keentay in isdhaafsigii uu fududaado laakiin waqti ku meel gaar ah ilaa shilin Soomaaliga laga daabacayo waxay u eg tahay inuu wax fududaynayo taas waa midda kale isticmaalka dollarka waa khasab meel looga leexan karo hadda ma hayno oo ah shilinkii Soomaaliga ah lamana daabici karo waana duqoobay haddaad aragto wax yar iibso markaa istiraahid
waa inaad qaadaa lacag fara badan shaar yaran iibsanaya markaad tiraahdo 100,000 200,000 300,000 oo kun oo lacaga oo shilin Soomaaliyeed qaadaysa laakiin markii aad tiraahdo imisa dollar wey $10 $20 $30 ku kala baxaysan marka lacagtii ciriiri badan gashay oo aan la daabici karin oo duqowday iyo dollarkii oo wax badan fududeynay ayaa isla socdaa wasiir waxaa dhibaato badan ay ka jirtaa qiimaha lacagta shilinka Soomaaliga ah oo hoos u dhac uu ku yimid badan qiimaheedii maxay tahay sababta ay keenaysa qiimo dhaca goormaysa soo bilaabatay xagee naga soo gashay shilinka Soomaaliga sidaa waa inuu ugu baabao waxaa keenaya waxaan anigu ka mid ahaa rag dhaqaale yaqaan oo lacagta marka la daabacayo talin ahaan loogu yeeri jiray waxa way qiimo dhaca shilinka Soomaaliga shalay iyo daraad ma ahayn shilin Soomaaliga wuxuu soo bilowday inuu qiimo dhac sameeyo waqtigii dawladda dhexe ee xoog lahayd ay jirtay lacag baa la daabacay iyadoo dawladdii lacag la'aan ay ku dhacday lacagti ku yaraatay lacag bay u baahatay dawladda bankiga dhexe ayaa ogolaaday in la daabaco lacag waxaan xusuustaa haddii la isu barbar dhigo istusid baalweynta maanta jirta waxaad arkaysaa nambarada haddaad fiiriso kuwa aada u duqoobay serial numberka casaanka ah ayay ku bilowday inflationka baagaas lacag haddii la daabaco waxaa imaanaya sicir barar lacag ka badan baahidii suuqa u socday ayaa soo gelaysa lacagtii loo baahnaa ka badan hadday soo gasho waxaa si kor u kacaya sicirka marka inflationkaas ayaa keenay in uu muddo soo socday haddaan kuu sheego shalay iyo daraad maahay waxaan ku qiyaasi karaa ilaa iyo 40 sano ku dhawaad marar badan oo la daabaco la iska daba keeno ilaa bankiga dhexe uu helo awood uu ku xakameeyo dhaqdhaqaaqa shilinka sicir barar uu socon xalku muxuu yahay marka ninka aqoon-yahan ahaan dhaqaalayahan ah maxaad xal u aragtaa in qiimihii lacagtii Soomaaliya lagu soo celin karo oo dib loogu soo nooleyn karo waxa weeye marka ugu horeysa waddanka nabadgelyo la helo haddaanan nabadgelyadiisa la wada xasilinin shilinka Soomaaliga sidaas u ahaanaya dhibaato weyn maxaa yeelay marka la daawaco lacagtu waxay u baahan tahay meel ay ku socoto u baahan tahay oo nabada taas waa mid nabadgelyada iyo xasiloonida dalka in loo sameeyo ta kale maadaama Soomaaliya dhib badan especially dhinaca dhaqaalaha dhib badan dawladdu waa burburtay hadda dawladdan rasmiga waxay jirtaa 3 sanadood tabarteedaaba intaas ahayd inay ilaa halkan inay keento laakiin culays badan baa jira waxaa loo baahan yahay dhaqaalayahanada in la isu keeno daraasad la sameeyo sidee looga baxaa maxaa yeelay meeshan waxay arrinta hadda taagan tahay maxaa jira ukunta iyo digaag keebaa horreysay mushkiladina waa jirtaa baahidina waa jirtaa sidee marka mushkiladan jirtana loo xalliyaa baahidan jirtana oo shuruudaha ay ku xiran yihiin loo sameeyo marka jawaab degdeg ah shakhsiyanna kaama siin karo nin dhaqaalayahan oo intuu soo istaago dhaho waa saasaa la yeelayaa ma heli doonto marka waxaan ku taliyey mar walbana ku taliyaa in koox dhaqaalayaqaano ah Soomaali ah iyo khabiir caalami ah la isku daro si degdeg ah arrintan xalligeeda inay la yimaadaan ugu dambeyntii wasiir maalmahan magaalada Nairobi waxaad u joogtay shirar aad la lahayd daaqbixiyaasha iyo wadamada caawiya Soomaaliya bal shirarkaas iyo wixii ay ku saabsanaayeen iyo guud ahaan jooga Soomaaliya ay saameynta ay ku lahaayeen aad u mahadsantahay lacag baad igu wareerisay laakiin hadda markaan u soo noqdo shaqadii aan haynay waxa weeye dalka waxaa loo sameeyey sanadkii 2012 waxa la yiraahdo higsiga ama new dealka dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta dalka 2012 ayaa la bilaabay
waqti isdhaaf ah dowlad kumeel gaara iyo dowlad rasmi ah isdhaafayeen waa ahayd marka hiigsigaas shirar badan ayaa laga galay dhaqaalaha Brussels lagu galay Londona la tegay Copenhagen la tegay ugu dambeyntii xamar 3 sano soo socday New Deal la yiraahdaa New Deal-kaas waxaa saldhigiisa ama samayntiisu u badnaa hay'adaha kaalmada bixiya Soomaaliya ayaa badankood sameeyay waxaad arkaysaa marka inuu ahaa arrin Soomaalidu waxa ay ku lahayd contribution kula iska yaraa marka 4 sano ahaa waa dhamaaday marka 3 sano soo gudubtay dawladdu la socday waxa ka haray waa 10 bilood miya 11 bilood wuxuu la socdaa mandate-kan dawladda la istaagay marka hadduu New Deal-kii waqtigiisii dhamaanayo maxaa tala ah New Deal kala loo noqdaa sidee halkee laga baxa dawladdu waxay go'aansatay marka taladan ku siin waxay ahayd qorshe qaran in la sameeyo qorshaha qaranka in la sameeyo oo 3 sanadood ah isagoo arin laga tagaynin New Deal-ka qaabku u socday structure-ku lahaa sida looga shaqeeyay intaba midnaba haddii kala caqabad waxay noqonaysaa wax socday wixii cusub caalamka jecel inaan diraado ku cararna maayn laakiin saldhigga qorshaha qaranka 3 sanadood soo socda waa New Deal marka ma samaysan kan saddexdii sano hadda ayaanu gacanta ku haynaa diyaarinteeda qorshahaas daradna waa sheegay haddana waa ku celinaya waa qorshe qaran waxa weeye wuxuu ka tarjumayaa baahida dalka wuxuu ka tarjumayaa baahida shacbiga Soomaaliyeed deeq bixiyaashu waa ogolaadeen maxaa yeelay ma noqon karo wadankan wadan banaanka laga maamulo runtii waa dawlad dhisan weeye dawlad jirta magaciisa dawlad ku meel gaar ah marka codkeeda ay leedahay sidaasaan wax u rabaa ninka aad la tagtaa oo kula shaqeynaayo waa qorshaha 3 sano ah waxaan jecelahay aan gacanta ku haynaa khibrada sameynaysa inay Soomaaliga sameynaysa waa ku celinaya ciddii aqoon-yahana diaspora jirto waxaan ka codsanaynaa aqoontooda inay soo celiyaan wax badan baa la yiri aqoontaas ay tahay Soomaali wax ma samaysan karto ma jirto waa sameyn karnaa haddana ragga u badan oo aan u yeernay in qorshaha wax ka sameeyaan qurba joogta aqoon-yahankii Soomaaliyeed iyagaasaan ku xisaabtamayna in uu Soomaali aqoon bay leedahay oo ku celcelinaya aqoontii waa jirtaa wadankii xasiloonay la'aantii ay aqoon-yahanadii banaanka u tageen waqti ay imaan karaan maanta waa la joogaa nabadgelyadu waa fiican tahay dad baa wadanka been ka sheega I don't know inta Mareykan maalintii ku dhimato lama sheego lama arko laakiin anaga digaag haduu baabuur ku dhaco iska daa qof waa la boonbooniyaa dalka waa ku noolnahay waa joognaa waxaan ku dhiirigelinayaa diaspora inay soo noqdaan qorshaha qaranka la sameeynayo ay ka qayb qaataan dabcan waxaad ka hadlaysaa waa in qorshe qaran la sameeyo oo horumar la sameeyo iyo hawl 3 sano soconayso laakiin waxaad moodaa indhuhu in ay maanta ka jeedaan meeshaas oo laga hadlayo 2016 iyo doorashooyinka Soomaaliya ka dhici doona oo cid walba ay ka hadlayso marka say isku waafaqayaan labada hawlood aad u mahadsantahay walaalo waxaan soo xusuusanayaa gabay uu Cali Cilmi Afyar hadda ka horgeeyay oo dawladihii rayidka ahaa uu gudbiyay waxay ahayd wadanka wuxuu u samaysnaa waxbarashadoo dhan waxay u samaysneen inay soo saaraan shaqaale dhaqan macnaha nin farsamo yaqaan ah tumaal ah dhakhtar midna uma samaysneen gabaygiisa waxaa ku jirta inuu yiraahdo dawladdu wada karaanaya dunidaba ma joogto hadda waxa weeye dad wada politician ah Soomaaliya kaliya laga arkaa kullu siyaasad ku sii wada jeeda adduunka kale markaad aragtid waxaad arkaysaa marmar maxaa dhacay inuu qof jidka socda hadaad weydiiso inuusan garanayn xataa madaxweynaha iyo wasiirka wuxuu arkaa dhaqaalaha wuxuu arkaa aqoonta wuxuu arkaa dhismaha marka
waxa weeye itijaahan wada ah hiigsiga 2016 guddi mid baa meel ka qaylinaya inta waddanka kulli siyaasiyiin lama wada noqon karo waxa weeye marka in dhegtana loo furo loona diyaar ahaado isbedel waa iman doonaa siduu ku yimaadaba ilaaha yaqaan laakiin in loo soo jeesto waddankii aanan la iloobin shaqadii inaan la iloobin horumarinta ayaanu waqtigiina waa isku soo beegnay su-aashaas aad weydiinaysaa iska daa adigu gaaladii iyo deeqbixiyaasha aan hor fadhinay ayaa nagu soo qaaday doorashadiiseed yeelaysa oo u sheegna doorashada dad baa wada annagana farsamo yaqaananaha waxa weye dhaqaalihii waddanka dhinac in laga wado waa qaateen marka waxaan rajeynayna dadkuna sidaa inay u qaataan u soo jeestaan hawshii laga rabay ee horumarinta dalka ahayd intaa ayaanu daawadayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan gaarka ah oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi waxaa marti inoogu ahaa Professor Cabdulaahi Sheekh Cali Qaloocow wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya kasoo wasiirka waxa uu yahay professor Soomaaliyeed oo ku takhasusay dhaqaalaha dalka waxaana sida aad arkayseen buu faahfaahin badan ka bixiyay marxaladaha lacagta Soomaaliya barnaamijkan oo kale intaan isku arki doono nabadgelyo aad baan kugu mahadcelinayaa professor mahadsanid aad iyo aad baad mahadsantahay